kadib markii maamulka sahnooniyadda Yuhuudda ra'iisul wasaaraha uu yahay Benjamin Netanyahu dhibaatooyin baaba'an oo isxiga u geysanayeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan marinka Gaza, taasoo ay saareen cunaqabatayn hawo, mid dhuleed iyo mid badeed intaba, ayna u diideen wadamadii muslimiinta ee u keeni lahaa caawimaada, ayna u geysan jireen dagaal qaawan oo geedna loogu soo gaban caalamkuna ay ku eeganayaan indhahooda. masiibaan soo daahinaya ku dhacday xalay, taasoo ay ku dhinteen 44 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 103 qof. 50,000 oo qof ilaa iyo 60,000 oo qof oo ku adag diinta Orthodox-ka Masiixiga ee wadankaasi Yuhuudda ayaa iskugu yimi meel uu ku aasan yahay baadarigooda weyn oo si weyn uga barakaystaan. meel bilisho ay ku macmaleen gamcahooda 1992 ayaa wadu noqotay inay ku dhintaan 44 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmaan 103 qof. dhacdadani waxay ka dhacday waqooyiga wadanka Israa'iil. ambalaasyo iyo helikobtaro ayaa loogu daabulay magaalooyinka waaweyn sida Jerusalem.